Ku soo dhawaada saaxiibayaal janalka Sheeko Magaal. Maanta waxaan idiin wadaa sheekada amiiradii soo laabatay ee daawasho wacan. Qisadani waxay ku bilaabanaysaa sida tan soo socoto. Waxaa jiray boqortooyo uu maamuli jiray boqor iyo xaaskiisa, waxayna lahaayeen gabar yar oo ayaga ay dhaleen. Habeen habeenada ka mid ayaa boqorku wuxuu ku soo kacay qaylada ciidanka iyo wasiirkiisa. Wasiirka ayaa isku dayay inuu boqorka afgembiyo, sidaas daraaddeed waxa uu ku soo diray ciidankiisa. Balse boqorka ayaa aaday si uu isaga difaaco, isaga ayaana ku dhintay. Boqoradii ayaa soo orday waxayna soo qaaday gabadhii yareed, waxayna kala soo baxday albaabka dambe ee qasriga, balse waxaa gaaray dhaawacyo aad u badan. Waxay soo socotay oo keenta ku soo jirta waxay imaaday gurigii ayay markay imaaday gargaraacday. Waxaa ka furay jinniyad yar. Markii ay jinniyada ka furtay boqoradii, waxay ka dalbatay inay u hayso gabadhoodii. Jinniyadii ayaa ka ogolaatay. Boqoradii waxa ay soo bixisay siliskeedii, kadib waxa ay ku dhacday dhulka wayna dhimatay. Jinniyadii ayaa soo qaaday gabadhii yareed, waxayna ku dhahday gabadheedii yareed aniga ayaa ku korsan doono. Waxa ay fiirisay katiinkeedii waxaana ku qornaa xarafka ma, sidaas darteed waxa ay u bixisay Matilda. Jinniyadii gabadha markii ay korsatay waxay noqotay gabar weyn. Markii ay weynaatay Matilda waxay noqotay amiirad aad u qurux badan, waxaana haysay jinniyadeedii. Jinniyadii ayaa u imaaday Matilda waxayna aragtay iyadoo faraxsan. Kadib jinniyadii way faraxday, laakiin waxaa la gaaray xilligii loo sheegi lahaa Matilda sirteedii. Jinniyadii ayaa Matilda u imaaday waxayna ku dhahday gabadheedii, waxaan rabaa inaan kuu sheego sir aan kaa qarinayo intaas. Waxay ku dhahday gabadheedii aniga hooyadaa ma ihi, hooyadaana ma aqaano. Habeen habeenada ka mid ah ayaa waxaa la soo gargaraacay albaabkayga. Markii aan ka furay waxay ahayd hooyadaa oo wado gabar yar, gabadhaasna waxay ahayd adiga. Kadib meesha ayay ku dhimatay, sidaas ayaana kugu soo korsaday adiga. Matilda ayaa dhahday dhib ma laha hooyo, adiga ayaa hooyaday ah, xataa haddaanan helin hooyaday waxaana kaa dhigan doonaa hooyaday inta ka dhiman cimrigayga. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa jinniyadii loo keenay warqad. Warqadda markii ay fiirisay waxa uu ku qornaa xaflad looga casuumay. Markii ay akhrisay ayaa waxay aragtay in la soo kaxayn karin qof bini'aadan ah, xafladana loogu talagalay jinniyada bas ah. Kadib jinniyadii ayaa u imaaday Matilda waxayna ku dhahday maxaad hooyo la murugaysan tahay. Waxay ku dhahday gabadheedii waxaa la igaga yeeray xaflad, mana ku kaxayn karo waayo xaflad waxaa loogu talagalay jinka bas ah. Matilda ayaa u imaaday hooyadeed waxayna ku dhahday hooyo waa adiga inaad baxdaa, waayo waa lagu casuumay, aniga ayaa sii joogaya inta laga gaarayo berri. Markii habeenkii la gaaray ayaa jinniyadii waxay u imaaday Matilda oo hurdo, waxayna silsiladeedii ka dhigtay mid awood badan. Waxayna dhahday hadda waan bixi karaa. Kadib markii ay baxday ayaa waxaa la gaaray subaxdii. Matilda ayaa soo kacday. Markii ay soo aaday bannaanka ayaa waxay aragtay balanbaalis aad u qurux badan. Kadib Matilda waxay soo daba kacday balanbaalistii iyadoo daba ordayso. Waxay soo daba ordaba Matilda waxay ka soo fogaatay keentii ilaa ay ka dhex imaaday magaaladii. Kadib waxa ay aragtay Matilda dad ayada la mid ah, aad ayayna u faraxsaneyd. Waxay aragtay dad ku socdo farda oona xiran dhar qurux badan, halka kale ay arkaysay dad qaba maryo aan fiicnayn, dhulka jiifo oona gaajaysan. Matilda aad ayay ula yaabtay dadka farqiga u dhexeeyo. Kadib waxa ay aragtay nin fadhiyo oo dhahayo i caawi. Kadib Matilda way soo baxday waxayna soo qaadatay daawadii ayay ugu dartay biyo odaygii xanuunsanaa. Kadib way siisay daawadii. Odaygii wuu fiicnaaday wuxuuna ka dalbaday in ay sidaas si la mid ah u daaweyso dadka kale oo meesha joogay, waayo waxay ahaayeen ayagaba kuwa xanuunsan. Matilda way ka aqbashay. Kadib waxay bilowday in ay qof walba ugu darto biyaha daawadii, ilaa uu warkii ka soo gaaray boqorkii. Boqorka wasiirkiisa ayaa u imaaday, wuxuuna ku dhahay waxaa imaaday dhakhtar gabar ah, waxayna daaweysaa dadka oo dhan, wayna ku fiicnaadeen daawadeeda, kamana qaadato wax lacag ah. Boqorka ayaa ka dalbaday wasiirkiisa in gabadhaas loogu keeno qasrigiisa si ay u daaweyso. Matilda qasriga ayaa la keenay, waxaana loo keenay meeshii uu jiifay boqorkii. Balse boqorka ayaa arkay katiinadii ku qornaa xarafka, wuxuuna ogaaday in ay tahay amiiradii ay dhaleen boqorkii iyo boqoradiisii. Kadib boqorka ayaa ku fikiray si uu Matilda isaga takhalusi lahaa. Matilda ayaa siisay boqorkii daawada, balse asaga wuxuu iska dhigay mid aan fiicnaanin, wuxuuna u dhawaaqay ciidankiisii.
wuxuuna dhahay inay isumayso ayay rabtaa. Kadib waxaa la dhahay Matilda boqorkii inay sumaynaysay ayaa lagu eedeeyay, waana la xiray. Matilda ayaa iska difaacday waxayna ku dhahday waa beenalow, balse qofna ma rumaysanin. Matilda waxaa lagu soo xiray xabsi ku yaallay qasriga ayadoo sugaysay dilkeedii, balse duq waayeel ayaa waxay u keentay cunto. Kadib markay cunnadii u keentay ayay waxay ku dhahday gabadhayda aniga waan ku aqaanaa, waxaan u shaqayn jiray boqorka iyo boqoradda hooyada ah. Kadib islaantii duqda ahayd ayaa bilowday inay Matilda ooga sheekayso waalidkeeda, waxayna ku dhahay waxaad tahay boqorad, ninkan ayaa idin khiyaamay, wuxuu dilay hooyada iyo aabbahaa. Matilda markii wax walba looga sheekeeyay ayaa waxay islaantii duqda ahayd ka dalbatay inay Matilda iska cafiso, waayo ma jirin wax ay u qaban kartay. Duqdii ayaana iska baxday markii dambe. Matilda ayaa iska dhigtay wax caloosha ay xanuunayso. Kadib waxaa u imaaday ninkii waday furaha. Matilda ayaa ninkii qabatay waxayna ugu dhufatay derbiga madaxa. Kadib furihii ayay ka soo qaadatay, wayna iska soo furtay xabsigii ay ku xirneyd. Balse intay soo socotay ayaa waxaa dhexda u galay boqorkii, wuxuuna ku dhuftay madaxa. Sidaas ayay Matilda ku suuxday, waxayna soo kacday iyadoo xirxiran. Boqorkiina wuxuu dhahay ha la kaxeeyo, waa in la gubaa maanta. Matilda ayaa la keenay meel ay dadkii buuxaan, waxaana la saaray meeshii lagu gubi lahaa. Waxay dhahaysay waa inaad daysaan waayo aniga waxba maanan samaynin. Dadkii ay daaweysay ayaa u markhaati furay waxayna dhaheen waxba may samaynin. Laakiin boqorkii ayaa ku amray in la gubo Matilda, waxaana la soo saaray meeshii lagu gubi lahaa. Dadka waxay dhahayeen waa in la sii daayaa Matilda, balse boqorkii ayaa ku amray ciidankiisa in ay ku daaraan dabka. Markii ay dabka lagu shiday Matilda ayaa daawadii jeebkeeda ku jirtay waxay ka soo baxday jeebkeeda. Kadib waxay bilowday inay dhulka ku daadato, dabkii ayaana sidaa ku damay. Shacabkii ayaa bilaabay inay la dagaallamaan boqorka iyo ciidankiisa, waxaana gaaray dhaawacyo aad u badan. Matilda markay aragtay dadkii oo sidaa u dhaawacmayay ayaa waxay ka soo booday meesheedii, waxayna soo qaadatay seef si ay ula dagaasho boqorkii. Balse Matilda isla markiiba waa la jabiyay, dhulka ayaana la dhigay. Inta uu boqorkii dilin ayaa waxaa imaaday Matilda hooyadeed soo korsatay ee ahayd jinniyadda, waxayna gacanteeda ku waday silsiladdii boqortooyo ee Matilda lahayd. Matilda ayaa loo keenay silsiladeedii, kadib way xiratay. Boqoradda ayaana bilowday inay Matilda siiso awooddeedii. Matilda markay heshay awooddeedii ayaa waxa ay boqorkii ku dishay awooddii. Kadib boqorkii ayaa dhintay, ciidankiisana sidii ayay looga guuleystay. Waxaa soo noqday boqortooyadii Matilda. Kadib Matilda iyo shacabkeeda ayaa nolol farxad leh ku